wax ma ii galin walaahi qof ku jir waa uu galaa naag waalan sida korona loo galay jimca ma aadino hooy xirsi soo kici bal ha quraacday orod haye hooy ninkaasi cunto iyo quraac midna kama maqan maadaama aan weynaadana waxaan jeclahay caruuran dhashay inaan arko waa ilmaha iyagaa dhabta inaan saarto ul iyo baakoor laba odayaa meesha lagu kala qabo hay noo soo duceeyay haddii kale masaajidka boqolkiiba soddon in la siiyo u ololeynaa maxaa xaqayga inaa dhaqsada maadiidinta xeerka ilaaliya waa yaraysa doodaas galabta waa inaa shaax u karsanaa السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. صوفريس جمال. وما سنته جمال وقهرين أسكابرو مقعيق وإسماعيل وحنا هماملها قيبت ماليدة أن نكان وأحمد وماملها قد قبدسنا واهباق ومضحة shaqada iyo shaqaaleynta bangiga marka soo dhawow jamaal imtixaankii qoraalka ahaa naga kaa qaadnay waxaa noqotay qof ku soo baxay sidaas darteedaan kuugu yeernay si aan wareysi toosa annaga kuula yeelano soo dhawow marka jamaal maxaan kugu shaqaalaysiinaana yacni hadduu bangigan ku shaqaalaysiiyo maxaad ku soo kordhinaysaa bangiga horta qofku raba asagaa yaqaan aniga waxaan ku kalsoonahay aqoonteedu waxbarasho gaar ahaan bank and finance waxaan aaminsanahay inaan ahay qof ku wanaagsan bulshada dhaqanka mar hadday intaas tahayna bangigu wuxuu u baahan yahay qof aqoon leh macaamiishna si wanaagsan ula dhaqma okay kaba soo qaad anagoo shaqo ku siinay for example adigoo xafiis ku jiro waxaa ku imaada macaamiil caraysan wuu ku aflagaaday wax walba kugu samayn karaa sidee ula dhaqmi lahayd ama u qancin lahayd macaamiilkaas way fududahay haye waa ka heshiisiin lahaa sidee qofka macmiilka ah markuu bankiga imaanaya wuxuu u baahnaa adeeg in loo qabto sax mar haddii adeegu u baahnaa loo qabto la dhagaysto lana raaligeliyo waxaan aaminsanahay inuu qofka asaga dib isugu laabanayo isceebsanayo maaragtay waxa uu sameeyay inuu ka xishoon doono mar walba wuxuu jeclaan doonaa bangiga iyo adeegga loo qabtay waad mahadsan tahay jamaal annaga isku harayno wixii natiijo ah dib ayaan kaaga soo sheegi doonaa waana ku soo waceynaa insha allah soo dhawow haddana waad bixi kartaa waa mahadsantihiin
halo. hey jamaal ii waran imtixaanka siduu ahaa maanta imtixaanka waxa waaye wuu iska fiicnaay laakiin weli jawaab kama helin laakiin waxaan qiyaasayaa maanta inaan qof nasiib badanahay. maxaa ka wadaa qof ay soo wici jirna ay soo wacay soo maaha. wax waalan take care saaxib. okay ciao. mac salaama. baraada niyo saxaabo waddankan haddaan lagu wadin shaqo ma helaysniyo. sax maxaa dhacay maxaa u dhahday niyo sharman boy wuxuu dhahay ma maqli miya nin walba ninkiisa hanoo la isticmaalo. iska hagaagaysa saaxib. habboon shaqadan haddaa hesho cashaa igu leedahay ogooyaa. ay boss. jamaalow suudkan baad imtixaan ku gashay saaxiiba waa baastaya waa waane waxaas howlahaaga waaye ii waran maanta shaqo ma lahayn miya saaxiibow shaqada ma aragtay muddo 2 bilood ma aadin micnaha xilliyada tanansiga ma aragtay xuduurka bisaa shaqadaada niyo waxay sheegaysaa war oon caqliga geliyano suuragal ahayno yaab leh maxaa meel dhanaa ka shaqaysidoo mushaarna ka qaadatidoo maxay tahay oo aadaysidoo xilligaa teedhisigoo keliya niyow beledkan waxaan suurtagal lahayn suurtagal laga dhigaa ka waran he wallaahi arrin yaabkiisa leh waay su'aalaan rabaa inaan ku weydiiye arrintii habboon iga waran arrintaas iska hilmaamo ku dhihino saaxiibow waxba ma jiraan arrintaas come on saaxiib ii sheegno niyow waxay ii sheegtay haddii aan shaqo helo habeenka maaragtay oo ugu horreeya inay cashii samaynayso aniga maxaan ku dhahay nasiibkaada inuu fiican yahay aniga waan kuu sheegay hadalkaygana waa run saaxiibo niyow inaan nasiib xumahay iyo inaan nasiib fiicanahay ma aqaan balse habboon saaxiib waa isla soo kornay sax abtigiina wuu dhalay anigii ayadana ma aqaan dhexdeena sidii uu wax maaragtay ku maraya maaragtay okaadi saaxiibow habboon yacni waxyaabaha nolosha u quruxda badan ayaa waxay tahay guur qaraabo iyo gabadho aqoon leh laisku meli kara soo ma ogid waa kuu dhacanta wallah adi ani halaas le makaaga yaabino saaxiibow yaa ku dhahay waa isguursanaynaa fudeedkan ma iga daysaniyo adiga saaxiibow wallahi niyo mucjisaa tahay aawe yarka maqaayadda aawe maxaan kaa qabanaa marka niyo maqaayadda ma kusoo xasuustee saaxiibow maqaayaday kugu casuumtayna ayada maxaa ku siiyaa abuu waxay siinaysaa aniga shax soomaali anigana waxaad ii keentaa hal cabitaan isbarmuuta mahadsanid niyahow arrintaas inaan kugu soo qaado mehen adiga waayo inaa wereerinaysaa ogaha moogta aniga kolley saaxiibkaada wanaagsan aan ahay saasaan ku weydiiyey moogtahay ogaawhay saaxiibkayga wanaagsan inaad tahay maaragtay cid kugu haysata ma laha adiga laha degdegin okay thank you أقسلم ما حسطانية ها ويتغنى ملينا ها محادا كي أبون يسلي سعودين وبدي سكوا عين سومتي مكانك إنه حرانينا صباح
عمر زمان ما جبت. اسمعني. ايه هالمرة ما باي. هاي جمال حاربتها. جوجا عاد ما. الحمد لله. waxaan ka rabaa waxaan u sameeyay qadan oo diyaari. ايه kaale. Zuweer mujidi miya? اي زبير ساتهاي مالما الواي. waa fiican adiga saa tahay ismahan fiican الحمد لله. هاي قضاء دي سو ديارنا. abaabale caawa intee loo socdaa maxaa dharka dil fiirinaya meel maa loo socdaa maqrib haddee tahay qofkana dhar fiirinaya meeloo u socdaa yari cawdale miga aamusi kartaa diyaar waa iga dabageeheeno jamaala shaqo helanoo maanta anina cashaan ku casuum marka waaw isgaadgaad maa jiri yaaqay ii sheegba qaybta warka ay cuncunoosay adi sac maa tahayne anigii jamaal walaalanahay maxaan dhex mari karana waa kula kafta mooyaaleeno okay waxaan kaa rabaa marka hooyiga boojeenoo cawado marib inay khalad ii fahantee anaa galaya ka saaxo okay thank you hay fadhiga aadaa dhex fadhinina bismillah uusana ku shad guriga أبونا إيه؟ ها ما بحنا ديار وحيد سك ismahaane hooyo hooyaa waxaan kuu dirsaday hooyo waa soo wadaa isug haye habboon iigu wac hooyo bal hooyo habboon ma joogto iida iyo abow jamaala israacay israacaya oo xaggee isku raaceen markuu imtixaanka shaqada u gala ay ka ballan qaaday inay casho u wadayso hadduu shaqada helo imtixaanka uu galaayo iyo hadduu shaqo helo iyo wax islama ahana maxaa dhacay waxa waay hooyo jamaal iyo habboon hal meel ay kusoo wada koreen waa dhalinyaro marka abaay habboon saan waaye qofkii gurigeena horumar gaaro saana u samayn jirtay markii iskuulka soo maxsuusta saas camal lee waa hooyo haye waaye hooyo cashay soo sameeyaa haye hooyo waa ku jeclahay sidoo kale maamo بحرك قلي أباي وسكي عافي استجي
bal marka hore see wax u jiraan hooya ikaa weydiisay laakiin hadda waa qanciyey su-aalo badan ay i weydiisay waxbaa kul weliga hadda waa qanciyey laakiin iyo imaan soo dhaqsada hay waa ogtaha mar walba kugu tashanaani waa ogahay hiri hee jalaato hore iigu soo gada hay qaali hay iyo imaan soo dhaqsada hay yaa waa qofka la hadlaysa saaxiibtay ayaan waay telefoonkaa tuugo ka dafeen waa wareeyey wax maa gaaray maya way fiican tahay okay hay waa tegeyna maho صاحب meeshaan caadi maaha wallahi way qurux badan tahay maxay iga qarsatay marna maxay keeni weysay meeshaan dadka oo dhan ma la iska keeno khaasa ii taa caadi iska dhig thank you ma maleynayaa mar haddaan shaqo adiga mudan xilligii la keeni lahaa gaaray maaho cashada caawa aniga adiga ii dalbaayo dooqaayo maya adiga waa casuumadaa dooqaaga dalba laakiin takeaway iska dhaaf okay haddii ay saas tahay iyada laftirkeeda waa arin gaarkeeda leh aniga waxaan dalbaday pizza ka waran aniga pizzaan qaadanaa anigana biizada len kula cunaa saaxiib noo imow mar kale soo dhawaada waa dhownahay waa maasan tahay haye waxaan siinaysaa hal miini pizza ah haye maxaa kale intaan aniga maanga ii raacinaysaa haye adigna walaashay anna qara ii keen soo dhawaada walaalahay maasan tahay adigaa mudan horta waxaan ku weydiiyey cunto karis maxaa kari taqaanaa professional ahaan miilooda 2 maalmood ka hor cuntadan kariina ammaanaysa sorry waa runta laakiin markii loo sii dhigay yacni markii loo fiiriyo sida sheef heer caalami ah cunto diyaarsan oo kala kacsan maaragta fi ay ugu samayn kartaa may wax caadi la lagu imaadaa ayaduna waa gaarkeed maadaama aan caawa hadda waqti fiican wada joogno maxaa jeclaan lahayd inaad ka hadasho ama aan ka sheekaysano maxaa danin lahayd I don't know aniga waxaa ila fiican haddii wax laga wada hadlaya ayaga inay iska imaadaan haddii kale waxaa noqon inaad dooda soo baxay may aniga dood ma ku jira baabkaas ay gelin jawiga waa macaan jawiga waa qurux badan yahay jawiga wuxuu ku fiican yahay marka jawi degan in lagu qaato hayga qasan caawa habeenkayga waa waa maasan tahay thank you idinkaa mudan alaabtan waxaan u malaynaa waayahan maada cabin marmar la iska cunaa marmar ay maadaama meeshaan adiga meelaha kuu qarsan inaba caadi maaha
tell me maxaan kuu sheegaa hadda shaqo waa heshay maxaa xiga marka like inaad guursatid ma rabtaa meeqo cunugaa rabtaa in lagu dhalo wax laynoo sheeg shaqo waa la helay guurle maa ku xiga maxaa horta waa guursana insha allah laakiin hadda maaha waxaan jeclahay inaad samaysto aniga maaragtay keliya nolol yaroo qurux badan oo kooban faamil yaroo kooban oo tayo leh inaad samaystaan jeclahay waaw ani maa iga xadee maxaa istaa oo laga xadaa adaa banaanka taagan maya macnaha anaa jecelno like inaa oo qoys yar oo kooban oo tayo leh aan samaysto you know what I mean wallahi arrin fiican waaye laakiin ani waxaas dhahaya qof 30 canug inay dhashay rabtaa بسم الله maxaa xildhibaan maamul goboleed ma soo dhiso yaani maxaan ka aqaanahay هلو ها باي ورن الحمد لله رب العالمين اسك xanuunsana xoogaa dabeel iyo qabow waxaan isleeyahay ama ku galay iyo waran maseetiin walaal macaana qandhadan magaalada ku jirta hargab xun baa socday waxa samaysaa liin ab biyo kululna ku qubayso waxaan islahaa ama bir subax dhakhtar aadaada ilaahayra war meeshan dhakhtar fiican ma jooge biyahaaga kulul ku qubayso liin ab quraanna isa saar hay isug idilay idil hooyo kaalay jikada fiir waxaa gubahay walaalay gabadhan waa u wareerisay taleefanaad raali noqoyaa wara iska gal inta ila hadlaysay taleefon iyo waxaan loo joognay 24 saac wadaa ismahaani qaraabo yihiin waa sidoo kale abaay tii haboon ayaantan xaaladeedu waa u bogi la ah haada ayaantan iyada iyo jamaalka baa isku badanoo haata caawa casha iskula maqan yihiin waxaas ma walaalay wax la sheegay waxa waay dhalinyaradu si isu taqaan isu raadsanay haddana jiilkan hadda lama sheegi karo adduunka tiknoolajiyada sheegay ama aqaanan tiknoolajiya koronto leh buu aqeene wax kasta waaba soo fududeeyeen iska dhaaf seerabana isku raacaan cuntada see ahayd aad ay u macid waa ka heshana aad iyo aad waxaan ka baqaa ma aragtay shaqada hadda tan inaa isbuuc kadib haddana ka tago shaqo kale aan raadiyay si ma aragtaa mar walba cashadan igu samaysay may caadi kugu sameynaa balan miya arrin fiican waay wax kale ma niga dhiman mise abu hal xab mixed fruit hal mixed fruit bas ah laba ka dhig waayahay hadda waxaan noqonay nin xafiis leh oo shaqaysto see dareemay marka nolol cusub oo cajiib ah soo ma aad iyo aad can I tell you something waa qurux badan tahay wallaahi adiga iga qurux badan soo moogid haddii xorolcayn dunida la keen lahay adigay noqon lahayd istakfirullah maxaa dhacay waa yaabay ilaahay ugu talagal ilaahay wuu ku siiyey
maaragtay maasha allah haddaan abwaan ahaan lahay oo mahadsanid horta heesaha soomaaliga maxaa ka qaldan waa khaldantahay anma maanta hees soomaali waxay weydiinaysaa oho habilo bixisada soomaaliga xataa u gambin jirtay waa haysaa ismahana jalaato sii maraynayaa taxta amrak boos warkaaga maan diidi kara waa ogtaa cashaa soo siisay naga dhaafaaday jalaataan soo qoon waxyar saaxiib faniilaan u soo helay ma og inay anfici doonto in kaleeto ani xataa waxay jeceshaha ma aqaana gabadhaas haboon waxaan kaaga mahad celinayaa maaragtay casuumaaddii maaragtay cashada ii samaysay thank you very much waxaas waa isku leenahay shaqadaadana allah kuu barakeeyo amiin دعوة صعد بدني ذا ما سيحتت باورك ساعدها صار Thank you.